haddana waxaan guda galayaa mawduuca u baahantihiin zaadka u baahantihiin oo ah sidee iskaga dhintaa bisha Ramadaan miisaanka. So 12 xabo qodob ay soo diyaari ama tibiskaas taaracday insha Allah waxaan rajeeyo doonaa inay shay baa la hadoontii qurux la hadoon jirkaaga caadi ay ku noqonayso miisaanka iska dhimid insha Allah hawaay ila fiirso marka. أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وأدين سلامة أنتوا كحيران جنالكيga معيد فتنس waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim bishi barkaasnada ku jirnaa waxaan rajeynayaa si fiican aan ugu faa'iideysano maanta mawduucan ka hadli doono waxay tahay qaabka iskaga dhimi lahayd miisaanka inta lagu guda jiro bisha Ramadaan videoga waxaan u hadli doonaa sababta keenta dadka bisha Ramadaan sababta keenta in ay xoosaan ama ay cayilaan ama weight gain ay sameeyaan law waxaan u hadli doonaa maxay jirka faa'iido leedahay bisha Ramadaan ama markaas soo mis jirka maxay faa'iido ku qaadanay saddex waxaan ka hadli doonaa tips aan idin siin doonaa tipskaas oo yani qaabka iskaga dhimi lahayd miisaanka inta lagu guda jiro bisha Ramadaan So hadda waxaan ka bilaabi doonaa insha Allah jirka maxay faa'iido leedahay bisha Ramadaan number 1 wuxuu calooshka nadiifiyaa wasakhda iyo sunta marka soomanta subax ilaa waxa soomantahay habeenkii inta laga gaarin afurka sax marka waxa jirkaaga yani wax badan baahi hayso waxaas marka waxay faa'iido leedahay in wasakhda ku jirta calooshaada jeermiska waxyaalahaas inay nadiifiso shaqo adag ay qabanay midka labaad waxay tahay wuxuu ka caawinaa inaa miisaanka iska rido waa mida u baahan tihiin inta badan hadaa sooman tahay waxa fudud in miisaanka iska rido hadii aad sida suxuurta ama afurka cuntada aad saxdid iyo waxyaalaha aan ka hadli doono oo iska joojisid iyo qaabkan ku sheegi doono hadaa raacid insha Allah miisaanka way dhimi doontaa fit aan noqon doontaa shay baa lahaa doontaa ciid waxa silciid doontaa asxaabtaada adigoo faraxsan adigoo fanaand kugu fadhiya shaatiga kugu fadhiya khamiiska kugu fadhiya insha Allah numberka saddexaad maqaarka ayuu qurxinaa ama soo ifina mid saddexaad waxa waaye gabdhaha badana ay sameeyaan shay maxaa la jiray inay kareem marsadaan waxa naturally alxamdulillah ilaahi nimcadiisa badan hadaa sooman tahay aad naftirkaaga nuura ka baxaayo maanta ma bis qaadanay salaada dukanay wajigaaga nuura ka baxay maqaarka uu soo ifaa habeenkii bay badan caaway buyusdeen saas darteeda subaxdii adigoo reynsan qurux badan asoo baxay insha Allah numberka afaraad jirka wuxuu sameeynaa cells cusub wuxuuna u muuqanaa qof dhalinyaro ah yani jirkaaga marka sooman tahay wuxuu sameeynaa cells ama unugyo cusub unugyadii hore inta asooneen iyo wixii hore dhan uu isbedela update isku sameeynaa cells cusub jirka uu sameeynaa adigana wuxuu ka dhigaa qof dhalinyaro ah oo yani soo ifaya numberka shanaad wuxuu xoojinaa difaaca jirka wuxuu ka celinaa sunta iyo bakteeriyada badan iyo waxyaalahaas oo dhan uu ka celinaa insha Allah xawaay soonka aad jirka faa'iido u leedahay so meesha waxa uu gudbeynaa numberka lixaad aan galeynaa wuxuu kor u qaadaa qaab maskaxeedka oo fikiraysid maskaxdaada wuxuu u bedelay qof fiican ama qof fikradiisa ay fiican tahay dad fikrad badan ku soo kordhiya haday noqoto ina oo plan asameysid yani marka laga xanaajiyo kale ina isdajisid yani qof relax badan aan noqonay qof maskaxdiisa fiican aan noqonay qof yani very active oo maxaa Allah maskaxdiisa aan noqonay insha Allah waa research badan la sameeyay waxa aan iska dhahayna ma ahan so meesha da ugu gudubno faa'iido ay leedahay soonka jirkaaga sababta faa'iido uu leedahay waxa uu gudbeynaa mawduuca labaad sababta keenta ina xoostid ama cayshid ama kiilaad qaadatid bisha Ramadaan inta lagu guda jiro so number 1 hada ka bilaabo waxa sababa in la cuno cuntooyin kala duwan ama cuntooyin fara badan sidaan aragnay xawaay waa kana maxaa lahaa miiska ama dhulka waa la soo buuxinaa inta la soo buuxinaa xawaay ay nooc bariis waxa kulli oo soo aruurina meesha la isku keenaa waa hamar hadana xawaay markaas dhibka jirto hal mar la wada cunaa يعني ملونا نفسنا يعني صباح دينا سو سوني اسدهي همر اسكو دي تاس marka isku deeysid
maxaa ka dhalan lahayo inaad caajisid adidan dareentid hurdo kadib maxaa dhacayo inaad jiifatid so wixii aad cuntay carbohydrate-kii maxay isku bedelay waxay isku bedelay sokortaas maxay isku bedelay fat so fatka jirkaaga ku dhalan lahayo kaasaa keenayo in aad cayishid ama kiilaad ay kugu samaysanto number 2 waa midda hadda aan sheegay waxaa kugu dhalanaya caajis fara badan iyo active la'aan waxaa noqonaya qof active la'aan ah hadaa mesela gymka aadi rabtid haweenkaas gymka ma aadi kartid sababtoo wax badan aa cuntay gymka hadaa aadi lahayd adadan caajis dareemay minka iska jiifin waxaas dhahay caawa gymka iska dhaaf ma aadaayay ana caajisa ahay hurda ku qabanayo sababta keenta maxay tahay cunto zaa'id u badan aa cuntay ahama rig isku siisay caloosh waa buuxisay so hadaa even aadis xataa gymka maybe marka culayska aa qaadid erna kugu dhacdo because hadaa degan tahay wax ma qaadi hadaa qaadidne erna kugu dhacayo meesha way soo kuusmay khaska yani dhibaato badan ay leedahay so normal la cuntid waaye hadaa gymka aadaysid yani caadi ahaan waxay kugu fiican tahay tartiibna wax cuntid si aa miisaan aa u qaadanin number 3 inaa cuntid fried food ka oo cuntooyinka saliida ah cuntooyinka saliida maxaa kamid ah waxa aad u jeceshiin Soomaali hadaan nahay waxaa kamid ah bajiyaha sambuuska burka wax kasta waxa soo dhan hada fiiri waxay galay saliid aad u far badan fiiri saliida lagu shubayo allahana limita lagu kudooya asdana zaid u qaadanay saliida zaid u qaadanayso adoo sooneed maanta dhan ku bilaawanaya maxaa lahaa gastriga ku dhacayo saliidaas isla markaas jirkaaga uu qaadana yani aad waxa waaye maxaa la jiray dangerous ku tahay yani riski maxaa lahaa wadnahaaga inay risk u geysto waa laga yaabaa so in iska ilaalisin kaas muhiim waaye dad badan ay la dagaali doona soon bajiil aantiisa see maxaa ma anfacayo adii marka dib ku tahay marka waxa booski bajiyaha waxa isku cuni lahayd waxa cuntaa waa soo socotaa waxa cuni lahayd waxyaalahaas insha Allah asugu waaneen numberka afaraad maxaa keena in xoostid ama cayishid numberka afaraad waa sokor badan in cuntid taasoo isku bedelaysa fat waxaa keenta in sokor badan aan cuno soonkii because marka afurno kadib waxa sameeysanaa kastar waxa sameeysanaa macmacaan waxa sameeysanaa waxa soo kala taraafik laga soo noqdo waxa waaye waa isku imaan hadan macmacaanki la cunaa so macmacaan absolutely ina cuntid khalad ay kugu tahay shokolaad hadii noqoto hadii aad sooneen xataa bisha Ramadan ay ahayn caadi ahaan diet hada ku jirtid qof caadi daa tahay sokorta ma ku fiicno absolutely naas ka dhaafid waay insulinkaaga jirkaaga si fiican uu sameeynayo so saas darteeda iska dhaaf gobol yar xitaa ka cun shokolaad hadii noqoto buskut hadii noqoto macmacaan hadii noqoto challenge ili sameey bisha Ramadan sokor dhan iska dhaaf si aad shape u lahaatid aad qurux u lahaatid darkan ay ku fadhiisid sababta waxa isku diyaarinaysaa ku ogahay ciida inaad sawir aad soo gashid waxa soo gashid adoo qurux badan so iska ilaali sokorta meesha uu gudba waxa keenta in aad cayishid hadan waxaan guud galayaa mowduuca oo baahantiin zaadka oo baahantiin oo ah sidee iskaga dhintaa bisha Ramadan miisaanka so 12 xabo qodob ay soo diyaari ama tibiskaas taaracday insha Allah waxaan rajay doonaa in ay sheeb ala haadoontid qurux ala haadoontid jirkaaga caadi ay ku noqonayso miisaanka iska dhimid insha Allah hawaaye ila fiirso marka number 1 cab biyo far badan hawaaye biyaha markasta waxa waaye qof kasto oo macallin ah uu ka hadlaa biyaha zaid muhiim u tahay khaasatan marka Ramadan ay tahay sababtoo subaxdii dhan sooman tahay hydration ina jirkaaga qaaditid waa hydrate macna hawaaye ina biyahaaga ay bataan mastay kugu tahay sababtoo subaxdii dadka qaar waxa waaye oo ay ka cawaadaan sababtoo haweenkii si fiican biyo mu caawin badana waxay sameeyaan macmacaankaas iyo xuntadaas iyo waxa sala cunaa biyaha waa la iska dhaafaa caloosha ay buuxin ama la isdhaha cuntada saa u cuno biyo badan macawaadi kal biyo daaco cuntada ay buuxsamaa sababta keenaysa marka ina wax cuntid biyahaas aad dhaafaysid waa biyaha laakiin daacabtid cuntada way ka celinay soo cuntada ay ka celinaysa maxaa meesha ka dhalanayo in cunto badan aan cunin weight gain aad sameeyeen marka weight loss ka maxaa la secret-keeda waa biyaha markasto ku dadaal hadii xataa on aysan ku haynin biyaha cab soonka marka la taagan yahay yani afurka hadii noqoto suxuurta inta u dhaxaysa snackska biyaha ku dadaal number 2 cun complex carbohydrate-ka complex food-ka waxa kamid ah oats-ka yani boorashka digirta iyo waxyaalahaas iyo bataatiga iyo kuwaas oo dhan yani gili cuntadaada meesha aad ku cuni lahayd fried food-ka kuwaas gili oats-ka iyo digirta iyo cambuulada iyo waxyaalahaas ahsan cun iyo doorada kulay proteinka qaybteeda kamid tahay so adiga hadaa u baahan tahay meal plan oo bisha Ramadan insha Allah ila soo xiriir waa ku diyaarinaa insha Allah si
أو dhibtoonin haddii aa awoodina ina meal plan iyo waxyaalahaas afaariis aa gashid tibiskan raac insha Allah inay ku caawin doontaa rajeynaa numberka 3aad waxay tahay cagaarka badso cagaarka maxaa ka mid ah koostada bagelka ansalaatada khajaarka waxaas oo dhan marka waxa la rabaa meesha aad ku cunaysid maxaa la lahaa bariiski waxyaalahaas haddii khudaar halahaas oo la eg aad ku cuntid iyo maxaa la dooradiisa oo mix aad ku samaysid waxa waa perfect aan noqonay vitamin badan ka helay meesha kala lahayo cagaar cun ansalaat bas le maaha so cost inaad samaysatid bagel waxyaalahaas inaad isku soo dardartid hal meel isku keentid kadib tartiib taada u cuntid waxa waa perfect waa numberka 4aad u gudbo ka fogow sonkorta mar labaad ugu soo noqotay waa aad iyo aad waxay muhiim tahay inaad weight loss aad samaysid sonkorta inaad ka dheeraatid xataa haddii weight gain aad sameynaysid waxa waa ka dheeraaw because insulin jirkaaga si fiican u sameynayo sababtoo ah waxa waa sonkorta meesha ka cuni lahayd waxa kaaga fiican inaad booskiisa fruits aad gelisid aad waxa ka fikiraysaa مثلا waa soo hadda soo afuray aniga bas yani wax oo iska riira iska cuna waxaas snacks lahaa snacks booskaas waxa gelinay tufaax canab strawberry xaala badan oo natural ah هذا وحيلاس مركع عندي هذا نفترك رينا دريمي يعني قف هبي عمل دريمي هذا قف عاف ما له دريمي لكن مركع عند وح سليد وحيلاس جاز تريقا كودا لبا دريمي هذا النوع كلام هوني تراويح مدوكم كرتيد يعني هذا النوع كلام هوني مركع نعانك بوسكيس وحق لسا فروتسكا اوكي نمبر شنات دا وغدبو كفوغو cuntoyinka la soo warshadeeyay xakmeeda doorshada cuntooyin waxa jirto oo baaka lagu soo xiro soo diyaariyo oo meelaha marketka lagu gado kuwaas dhan ka fogow absolutely waxa waaye because warshadii soo maray makiinay soo maray chemical soo maray natural ka kaaga fiican cuntadkaas marka wax baakadaysan iska dhaaf natural ka cun numberka 6aad u gudbo ka fogow cuntooyinka saliida lagu sameeyay cuntooyinka saliida lagu sameeyay waxa kamid ah jibsiga bata maxaa lahaa brostaha yani أوجنا حواسونك وعلى صباحها وحال هذا مخايضها تراويح كدب مثلا حال صعنا بروست وحيالها دور بيزا هواي حسنا سكلاف يو حاكم ده بركس برتا بجيها سمبوسكا يعني ادي هذا صونك استعمالنا ان سريد وحلو سمي عنه marka absolutely iska dhaaf numberka 7aad si tartiib ah u cun ama yani si tartiib ah markaan ku dhahayo xawaaye si fiican u calaali yani kow afka gelinay waa calaanjinay tartiib markaas digestive system ka tagay marka si ay u fududaado digestive system ka in ay dheefshiido cuntada tartiib ah u cun because hal mar ma ka daba geenin hadda makiinad marka ku shiiday silbada yani tartiib u ridnaa sax laakiin hal mar hadaa ku ridid inaa shiidid way cuslaanay gacantaada la ku fiirsaas marka u shiidaysid way ku cuslaanay inaa shiidid baashana inay ka gadoonta laga yaabo marka tartiibna caloosha u gelisid muhiim ku tahay marka 8aad afurka kadib active sameey active ina ahaatid muhiim waaye soonka marka lagu jiro hadii aad weight loss ina sameeysid hadii ay noqoto hadii aad qof yani subaxda energy haayo inta macallaha la gaarin afurka gymka tag ama soo orod ama active iska dhig hadii aad dhehaysid ma awood waxa waa tacbaana ku noqonaa waxa afurka kadib cunto oo qiyaas leh cun kadib gymka aad soo gub waxa cuntay soo gub ma fahanti marka waxa active inaana khatid waxay ku fududaanay inaad weight loss ku sameeysid waxa soo cunta isla markaas waa si bixinaysa laakiin hada ku jiifatid ku soo kacid wax ku sameeyay minka iska fadhisid waxa waa weight gain caadi sameeyay faada ku dhalanaa so numberka 9aad marna ha ka tagin saxuurta waa mid aad iyo aad muhiimsan saxuurta marna ha ka tagin sababtoo ah saxuurta daacuntid wixii maalintii aad ku noolaaleed jirka aad ku socon leed active ka ku noqoleed saxuurta waa واتينا ويري فإن في السحور بركة يعني وحكست أنا قدينت أنا أقول شيء الحمد لله مركب حواي إنها عن مهمة نقطة هاي سو واحدة سحور تما تدعو أنت أو تسكان يعني بورشكي يعني وحيالها سي فرماجة يعني يهدريد أنا خوتيد بي بدل نعبتي تسكت دي سحورتها صوبتها سو واحدة إذا بي مباهنة سوحة عنتينه إلا أفرق الإيجارة وكهينة أدينا وحنا نقول خف يعني أكتف وإنرجي هايو لكن هذا صحورنين أدينا نفترق على سبيل مركز صحورنين سو واحد أدينا وحنا نقول خف أو ماذا حوالي رايو إن ده لنا مذوق ونقنايو صوته إنرجي مهيسيت أو كسوع تحتها سو مهم واي إن سحورتيت سحورت أم كدال إن شاء الله نمبر كتوانات
marka sooman tahay subaxdii active ahow yani ha noqonin qof jiifo markasto soo kac quraankaaga akhriso salaadaada duko maxaa soo qabsanayso shaqa soo qabso banaanka wax kale soo qabso yani ha isdhihin hadaa soo socotid baahiya ku qabanayo waxa active naqad muhiim ah ku tahay sababtoo ah jiifatid afadisatid goorma jirkaaga fat burning sameeynay yani ma noqonayso marka naabaxdid asocotid muhiim ah ku tahay wuxuu ilaahay na farayna inaa aan sameeyno sida quraankana akhrino waatu ilaahay uu yiri shahru ramadaan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda so aan ku dadaalna insha Allah quraankana akhrino salaadina aan dukanaad kaarteen aan badin insha Allah numberka 12aad hurdo kugu filan hel waa aad iyo aad muhiim ah wax aad iyo aad muhiim ah hurdo kugu filan heshid sababtoo ah badana waxa sameeyna in aan isku fulino yani hal mar suxuur mara maxaa lahaa 6 saac ama 7 saac ajifanay waxa dheey bis toos suxuuro iska jiifo toos waxay u soo kac ku fiicno waxa ku fiican ina habeenkii ciyab aseexatid 4 saac meelahaas yani dadka badana Yurubta ku nool waxa laga yaabaa in afurka xataa ay gaaraan 3 saac anaga markaa qaban 4 saac ayma waqtigaas waxay u tahay so 4 saac meelahaas hadaa seexatid si aa u heshid hurdo kugu filan 8 saacadood inaad seexatid muhiim waaye sababtoo waxa soo kacaysa 10 saac ama 8 saac saxuurta soo kacaysa so halahaas jirkaaga inay nastaan muhiim ku tahay ay maxal laha wax badan ay sameeyaan markaas kadib salaada subax markaad dukatid quraankaaga akhrisatid hadii hoole ku taalo waxay iska naso kadib bax hawsha soo qabso ilaa afurku waxa marka ay caajisinin active noqo so numberka 12aadna waxay tahay ramadaanka si fiican ah ugu faa'iideysano marka insha Allah waxa waaye bishaan waa bil aad muhiim u ah insha Allah waxaan rajay doonaa inaan ka faa'iideysano si fiican ugu faa'iideysan insha Allah موضوعنا هلاس وكوكوين يهي وحرجي دونا تبس كان دارعي قف أو في عن أما فده هنا ناخد إن شاء الله عيدا عن العيد يسد أذيقو وروح بدن هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم